WhatsApp ma isticmaashaa? Haddaba waxaa laga yaabaa inaadan isticmaalin waxyaabaha qaar oo uu leeyahay WhatsApp. WhatsApp wuxuu ka mid noqday waxyaabaha aad loo isticmaalo bishii Abriil 2022. WhatsApp isticmaalkiisa waxaa lagu qiyaasay inuu gaaray 2.44 bilyan oo dad isticmaalaya. Muuqaalkan waxaan ku arki doonaa 8 waxyaabood oo cajiib ah oo uu leeyahay WhatsApp. Qaybta koowaad waxaan ku arki doonaa sida fariimaha kontaktayada hadday badan yihiin oo aad u baahan tahay dadka qaas inay kor ku saarnaadaan mar kasta. Waxaa sameynay dadka u baahan tahay tusaale kale waxaan u baahanahay kan ayaad u baahanay inaan keensano meeshaas uu sareys inaan keensano u baahan. Waxaan sameynaynaa asaga ayaan ku dhufanayna kadib meeshaas ay qoran tahay pin ayaan ku dhufanay kadib wuxuu ku imaanayaa kontaktigaas kor ayuu ku saarnaanayaa mar walba. Si fudud ayaan kula xiriiri kartaa haddii kontakt kasta meeshaan soo galo u bato asaga kor ayuu ku saarnaanayaa. Dhanka kale asaga hadda u baahan tahay fariimaha oo meeshaan ku qoran in aad ka dhigato unread meeshaas ayaa imaanay kadib waxaad ku dhufanay mark as unread kadib wuxuu ku fulayaa wuxuu ku noqon doonaa as unread. Fariimaha adoon akhrin ayuu ku noqon doonaa maadan akhrin oo kale. Marka qaybta kale waxaan ku arki doonaa sida u soo saaran karto sound caadi ah. Sound maadaama WhatsApp fariimaha markay kugu soo dhacayaan cod qaas ah lagu yaqaano si aad ugu beddesho oo cod qaas ah u saarato kontaktayada adiga aad rabto tusaale kale kan ayaan u baahanahay inaan u saarno wax loo yaqaano sound qaas ah yani cod qaas ah. Asaga ayaa ku dhufanay kadib waxaad imaanay meeshaan ay qoran tahay custom notifications. Asaga ayaa ku dhufanay haddii meeshaan tig aysan ku saarnayn tig ayaa saari kadib intan option ayaa ku soo bixi doona waxaad ka dooranay notification tone meesha ay qoran tahay markaas waxaa ku soo bixi doono intaan music cod ah. Marka badanaa fariimaha midka WhatsApp ku soo dhacmaanay midka kale ayaa ka dooran kartaa si aad ku garato kontaktigaas fariintu inuu ku soo diray. La wadaag location-kaada dadka aad rabto si taas u sameyso. WhatsApp option ayuu leeyahay oo ah marka asaga aad gasho waxaad arki doontaa calaamadaas kadib markaa ku dhufato location ayaa ku soo bixi doona. Location markuu ku soo baxo waxaad arki doontaa laba meelood oo ah share live location ama send your current location. Midka doonto ku dhufo share live location ta ku dhufato location aad joogto toos ayuu qofkaas kontaktigaas u heli karaa. Marka asaga ku dhufo waxaa ku soo bixi doona location-kaada hadda meesha joogta ayaa meeshaan kaga muuqdo share live location ku dhufo option waxaa ku soo bixi doona oo ah muddada aad doonayso inaad la wadaagto location-kaada kontaktigan. Dooro kadib comment ayaa meeshaas kala ku arkaysaa oo waxaad doontaa qoran kartaa kadib send ayaa leedahay marka adigoo la wadaagay location-kaada kontaktigan. WhatsApp feature-kaas ayuu leeyahay. WhatsApp option wuxuu leeyahay loo yaqaano inaad ku isticmaali karto WhatsApp-kaada asagoo browser-ka markaad furto waxaad ka isticmaali kartaa WhatsApp-ka. Website-kan ayaa booqanay loo yaqaano web markaad qorto suggestion badan ayaa ku soo baxaya. Kan ugu horeeya ayaa ku dhufanay kadib waxaa ku soo bixi doono WhatsApp web meesha ay qoran tahay. WhatsApp web meesha ay qoran tahay markaad ku dhufato waxaad arki doontaa instruction ku soo baxayo. Instruction-kan ay raaci ama video source ku qoran ayaad daawan kartaa kadib markaad ku xirto WhatsApp-kaada computer-kaada waxaad ka isticmaali kartaa WhatsApp-kaada halkan. Kontaktigaas dhamaantood halkan ayay kaga soo muuqan doonaan. Laakiin option-kan ma laha wax loo yaqaano voice call ama video call. Si aad u hesho waa inaad asagoo desktop aad isticmaasho si aad u hesho option-kaas.